madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta madaxtooyada qaranka ee magaalada Muqdisho waxa uu kulan kula qaatay madaxa hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR Mudane Filippo Grandi. Madaxweynaha iyo mas'uulkan ka socday hay'adda UNHCR ayaa ka wada hadlay sidii xilligan loo wajihi lahaa dhibaatooyin kala duwan ee haysta dadka barakacayaasha oo dhibaatooyin kala duwan la daala dhacaya iyo sidii gurmad bini'aadinimo loogu fidin lahaa. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku amaanay hay'adda UNHCR sida dadaalada xooggan ay ugu jirto sidii ay u caawin lahayd dadku ay dhibaatooyin kala duwan wajahaya oo ay ka mid tahay dadku abaaruhu ay saameeyeen. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uulkan ayaa isla soo hadal qaaday sidii loo caawin lahaa dadka ka barakacay goobaha Al-Shabaab ay ku sugnaayeen oo ay dagaaladu saameynta xooggan ay ku yeesheen. gabagabadii kulanka markuu soo ilaaday waxaa warbaahinta u sharaxay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee kulankaasi looga wada hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Axmed Macalin Fiqi. bismillaahir rahmaanir rahiim. runtii maanta sharaf weyn bay noo tahay inaan soo dhaweyno High Commissioner-ka hay'adda qaxootiga adduunka oo maanta nagu soo booqday Master Filippo Grandi magaalada Muqdisho lana kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud xafiiskiisa kula kulmay wana warbixiyay dadaalada hay'addani ay wado Soomaaliya ay ka wado iyo gurmadka dadka barakacayaasha iyo qaxootigaba. runtii madaxweynuhu wuxuu cabiray aragtidiisa ku saabsan sida xal waara loogu heli karo arrintan iyo dhibaatada abaarihii u dambeeyay ay geysteen 4 xilli roobaad oo baaqatay dad badanna ay ku barakaceen. sidoo kale kooxaha argagixisada Al-Shabaab dhibaatada ay ku hayaan dalka oo ayaguna sababay barakac badan. runtii hay'adda qaxootiga adduunka waxaan runtii uga mahadcelinaynaa inay Soomaaliya kambeyn xooggan ugu jirto sidii loo caawin lahaa welina Soomaaliya u baahan tahay in laga caawiyo arrimaha qaxootiga iyo barakaca iyo ku saabsan iyo abaaraha loona baahan yahay gargaar dadka Soomaaliyeed oo abaarahaas ay ku habsadeen iyo dhibaatooyinkii kale horay dagaaladii sukay ay sababeen. kulankan ayaa imaanaya ay wada qaateen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxa ka socday hay'adda UNHCR xilli dalka ay ka dhaceen abaaro saameeyay dadka iyo dunyada waxaana dadka ay ka soo barakaceen goobihii ay abaaruhu ay ku saameeyeen kuwaasoo soo maciin biday qaarkood inay soo gaaraan magaalada Muqdisho oo wajahaya dhibaatooyin dhanka nolosha. Cabdiraxmaan waa bari warbaahinta Daljir Muqdisho. ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees. Sayfin Akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam.